السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عافيماد عبادة صوبان يعمل وناكسن بأندين رجينا يا والله شرفت له. قرال أين لو وداكتها ويني كحرا مقالدين دالعتا أو دقيستا أيا وحي تري وحن يسقمنين عرف خياقي باكلا دماضي أو واكلا تغني ninkaasu muu tagi jirin ama muu qaadi jirin biraha ama iskamu xaadirin jirin goobta jiimka ee jirka lagu dhisay raggu ay tagaan. markii aanu kala tagnay ninkaas ee calafkayagii kala dhamaaday waxaan guursaday bay tiri nin jiimara oo jiimka qaada ama goobaha inta badan fitnesska ee jirka lagu dhiso taga ayaan guursaday bay tiri. ninkaas waxay tiri muuqaal ahaan waa nin dhisan murqihiisa iyo jirkiisa iyo physical ahaan aad buu iskaga shaqeeyay, laakiin waxaan ku arkay bay tiri arrin anaad ula yaabay oo ay ku kala bedelan yihiin ama ay ku kala duwan yihiin ninkii hore aanu isqabnay iyo ninkan. waxay tiri wixiisu waxa uu leeyahay bay tiri fartaas. markaas waxaan isweydiiyay bay tiri ma birahan uu qaadayo iyo jiimkan uu qaadayo ayuu yaraaday oo wixii sii yareeyay mise waxan waa wax iska dabeeciya oo dhalasha oo raggu ay ku kala bedelan yihiin. arrintaas ayaan doonayaa bay tiri inaad iga shaafidaan ama aad iga soo jawaabtaan. laakiin saameyn miyuu ku leeyahay jiimkaasi arrinta ama dhinaca kale wax saameyn miyuu ku leeyahay? haddii aynu ku soo dhawaano jawaabta weydiinta aynu soo weydiisay ama su'aasha aynu soo weydiisay haweeneyda sharafta leh, marka kooban raggu way ku kala bedelaan karaan dhinacaas qaab dabeeciya iyo dhinaca dhalashada iyo dhinaca hidaha bay'ada uu ku nool yahay ninku cuntada uu qaato sida uu markaa jirkiisa uga shaqeeyo intaba way ku kala bedelaan karaan. laakiin dhinaca kale in qaadista jiimka iyo ninku inuu markaa jirkiisa u dhiso ama inuu iska xaadiriyo goobta jiimka ilaa hadda daliil caafimaad oo qeexaya inuu yarayn karo ama inuu daciifin karo ma jirto. markaa walaashaas waxaynu kula talin lahayn haddii aanay jirin wax kaloo dhibaato ahi xaalad caafimaad isfaham waa dhinaca qoyskaahi inay u samirka sayigeeda isla markaana inay farxad ku wada noolaadaan oo aanay wax dhibaato iyo wax hurgufa iyo arrinta aanay u kala dhaqaaqin. intaas ayaynu ku soo ururaynaaye. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.